حوراتو حشينو داشي هدي حوراتو حشينو داشي أنمالو هاشي أمان ديغي أقلو عندادي كل مالسي أنمالو هاشي أمان ديغي mar kale daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan lahow ku soo dhawaada barnaamijka codka jaaliyadda Canada oo idinkaga yimaada telefishinka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa dalka Canada gaar ahaan magaalada Montreal oo aynu hadda ku sugannahay halkaasi oo uu ka dhacayo kulankii ay soo qaban qaabisay hay'adda ICAO oo ka tirsan qaramada midoobay waxa maantay halkan ka dhacay shirkii wasiirada gaadiidka cirka iyo dhulka ee qaaradda Afrika waxaana Soomaaliya nooga qayb galay wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka mudane Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi oo haatan la taagan shirkaasina markuu soo dhamaaday ayaan wasiirka waxaan kula kulannay hoolkii uu ka dhacay shirka marka hore mudane wasiir ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed shirkii taariikhiga ahaa ee maanta aad ka qayb gashay wasiirada gaadiidka cirka qaaradda Afrika ka qayb galeen maanta ajandihiisa iyo waxyaabaha lagu soo qaaday muxuudiin waad maasantahay maanta waxay ahayd muhiim bay ahayd maalin muhiim ay ahayd waxa isugu yimid wasiirada Afrikaanka ayaa isugu yimid gaadiidka cirka dhulka cirka waxa ugu muhiimsanna wuxuu ahaa laba shay mid wuxuu ahaa oo daba socday follow up oo ahaa shirkii sanadkii hore July lagu qabtay Abuja Nigeria oo runtii dhaxalgal ahaa oo qodobo badan dawladaha Afrikaanku ku heshiiyeen wasiirada gaadiidku in la dhaqan galiyo wixii ka dhaqan galay wixii u dhiman dawladihii sida fiican u dhaqan galiyay dawladaha dhexdhexaadka iyo kuwa muxuu ahaa liita oo loo baahan yahay hor u soo kacaan qaybtiisa labaadna wuxuu ahaa standardka ama qaabka ay miisaanka ay ka doonayso mar walba ICAO dunida oo dhan ayuu ahaa ama saameynta uu ku leeyahay gaadiidka cirka dhaqaalaha adduunka nabadgelyadana ugu muhiimsanayd وهي سيفتي أدونك ستاندركيسا وأدكتها Chicago Convention بان ممبر كنا هاي وماشي اللي جو عريي هاي ICAO أفرتني أفرتي يعني كنا هاي حبين كنا هاي مركب حبين نماذج إني دبنا ما كم عنين وحنا كنا نصيب نوع هاتي إن أنه كغيب قال الشركان أديكو أنا أقانسي كنا يسوي عشاني ودولة أمر بدم أنا الحين كمل قاد الدولة محاها constitutional أو محاها حير كذي بحسيني هاي ودحين هذا اللي دارتي قال هذا شعبك اللي دارتي وزير هذا ذي لسنين دور لا تنسى كذب إن عن قايديت كي هر أمر إنه إركا ودكتها هاي بشي شناد ماي هاي لا تنسى كذب وحنا لسنا عني وحلو يعني كاكس أو أي تاي هذا إصدق بلد كذب لأنه جسوا ريتشي وسند كأسب تاس أو ضد يدقالة إيو qalabba inuu mas'uul ka noqonayno marka waxay la xiriirtay in annagu ogtahay meel dheer baan joognaa dadka hadda yaani runtii xaqiiqatan ka hadli kara manihin muxuu ahaayay dhaqan galis iyo shuruudaha la iska rabo laakiin waxay noo ahayd mar waxbarasho noo ahayd laba waxay noo ahayd waxyaalaha lagu heshiiyay ee dunida iyo qaaradda Afrika ay ku heshiiyeen inaan qayb ka noqono oo tiigsano oo ay noo noqdaan yoolkii aan tiigsano saddex inaan tusno inaan u baahannahay inay nacaawiyaan guud ahaan ama African level ha noqoto ama ha noqoto ICAO headquarterkeeda ha noqoto oo meesha hadda aan joognaa oo marxaladanadii ayaanu u sheegnay aanu marayno saddex waxaa meesha loo baahan yahay tababaro dal waxaan nahay runtii wixiisu ay raaceen dagaalkii sokeeye burburkiisu raacay ama dad ha noqdo ama qalab ha noqdo oo xataa garoonkeedii ay gaartay in loo wareejiyo Kenya waayo dunida markaad hawadaada maamuli weydo waa lagu talinaya waa lagu maamulaya waa wax lagu heshiiyey in aadan dayicin oo adduunka korkeena joogto u mara marka cidii maamuli weydo waxaa jirta inay kaliya ma dawlado xor ah oo aan dagaal sokeeye gelin oo marka standardkii intay haleeli waayeen laga qaaday baa jiro hadda Afrika ayaa jira oo meesha ku ogaanay runtii dawladda aad u dadaalay baa jira oo loo sacabiyay oo iyagu aad u hooseeya 2-3 sano ka hor haddana muxuu ahaayay
aad u saro maray Mauritania iyo Suudaan oo kala ka mid ah loo saabiyay waxayna ku xiran tahay dalku si u dadaalo oo maartay uu tiigsado dhaqangalka shuruudaha laga rabo annagu runtii markii la cabiro meesha aan ka nimid ama dagaalka sokeeye soo baabi'iyay meel fiican marmarayna aqoonsigii hadda waad ogtahay waxaan la soo wareegaynaa hawadu dhaqaale leedahay bil joogta aad u badan muxuu ahaayey waxaa markaa aan ku haminayno noogu weynaa dowladaha inay tababarna siiyaan Korea oo kale muxuu ahaayey way timid EU-du way timid jaamacadda Carab way timid dowladaha rabay in ay dadka sidanadoo kale ah meel hoose jooga gacan siiyaan tababar hawada waxaan kale oo chance u helay in aan la kulmo wasiiradii dariska aan ahayn Ethiopia iyo Kenya waayo waxaan rabnay inaan bilateral agreement heshiis ah aan la galo muhiimad weyn bay nagu leeyihiin dadka naga aada dadka naga degan waad ogtahay dalka sida u burburayba dad badan baa yaa dibadaha u qahay marka waxaan rabnaa dhaqaale ahaan iyo muxuu ahaayey dadkiina inaan u saamaxno ay u ogolaado dadkoodii iyo dalkoodii inay soo ziyaartaan waxayna ku hirgeli kartaa oqola in aanu heshiisyo badan la galno dunida si aan dadkii ay u helaan connections waxaa markaa meesha ka caddayd in runtii ay isku xiran yihiin tourismka waxaa loo yaqaanaa dalxiiska iyo gaadiidka wanaagga cirka inay isku xiran tahay dowladihii waxaa ka caddaatay meesha matalan gaadiidkooda hawadu aad u fiicnaa sida Kenya iyo Ethiopia oo kale haddana inay waa un mitaal iyo qaahira masaaridoo kale in haddana uu dalxiiskoodu aad u sarreeyo waayo waa wax isku xiran weeye gaadiidkii runtii Afrikaanku ma yaraystaan 3.5 bay qiyaastii marayaan caalamka oo dhan GDP-giisa ayuu xamarahayaa aviation-ka marahaya Afrikaankuna markii loo eego gaadiidka cirka horumarkiisa ma yaraystaan waxay marahayaan 12 meelahaas marayaan marka waxay istuseen in ay intaas laba jibaari karaan ilaa 20ka Afrikaanku isku tashi u gaaray runtii EU-da iyo Mareykanka iyo jaamacadda Carabia iyo way wada joogeen iyo nimanka la dhihi jiray Korea Japan way wada joogeen intubana waxay codsadeen in laynan cusub oo hawada ah muxuu ahaayey Afrikaanka ay la yeeshaan oo khuduudaasu muhiim bay ku keenaysaa arrintaasu waxay ahayd arrimahaas ayaa u badnaa runtiina lama dhihi karo waxaa lagu soo koobi karay arrintii maanta maalin baa lagu soo koobi karay lama dhihi karo laakiin timekii baa waxaa lagu ekaysiiyey ama waqtigii waxaa lagu ekaysiiyey in qolooyinkii soo gudbiyey oo waxaa jeergaraynaya matalan Ghana jeergaraynaysay gabadha in iyo shirka maanta jeergaraynaysay in barnaamijkan AFI-ga loo bixiyey in uu dhaqan galo kaasna waxaan damacsannahay inaan markaa noqono haddii Ilaahay yiraahdo aanu gaadiidkanaga cirka gobolladoo dhan isugu yeedhno muxuu ahay kadibna aan fiirino baahidanada koowaad waa iska caddahay waa tababar waayo 3 bilood waxaan rabnaa aanu sida ugu badan duuliyayaashii iyo technicianskii farsamadii waxa dhan inaanu runtii aanu isu keeno inaga dhimanna intaan isdirisno dib isu fiirino inaanu dirsanno intaasaa ugu muhiimsanayd weli dee shirkii muhiimka ah caalamku berri buu bilaabanayaa waa ka 24ka laakiin kan khaas wuxuu u ahaa wasiirada Afrikaanka ayuu waxa wuxuuna daba joogay saan ku sheegay shirkii Nigeria ee Abuja oo runtii akhbaar aad u badan ah aadna u faa'iido badneed waqti wasiir runtii muddadii sanadka ahayd ee dawladda federaalka Soomaaliya rasmiga ay jirtay dadaalka aad subiseen dadaal aad u ballaaran buu ahaa oo aqoonsigii iyo dhinac kasta markay noqoto maanta waxaad joogtaa xarunta hay'adda ICO ee ku taala magaalada Montreal marka haddaad ku soo noqoto dhinaca marka ka hadashay safety-ga iyo marka wadanka gudihiisa fiirso garoonka diyaaradaha ay aadan cadde hadda in ay diyaaradaha adduunka caalamiga ah maadaama hadda diyaaradda Turkish Airlines ay timaado marka asagu xaaladiisa wax ma ka bedelaysaan mise dayactirro kala jiro in garoon kale la sameeyo su'aal fiican weeye runtii inaad la socotaan u malayn bishii hadda inaga tagtay diyaarad weyn oo Turkiga ah matalan batimid oo markii hore ka yaabaneen inay soo degayso 300 oo tan ah iyadii markii la isku daro qalabkii ay waday waad garan kartaa diyaaraddaas intay la eg tahay garoonkan waa garoon fiican
hase yeeshee waa arrin mustaqbalka waxaa laga yaabaa in aan uu jiro qorshe ah in aan international airport ay dowladdu waxay ku haminaysaa inay samayso oo isla un xamar gaarkeeda ah laakiin kan hadda qoladan aan ku wareejinay Favori ee Turkiga waxaa noogu jira balaanka inay hore ka bilaabaan inay airportka casriyeeyaan oo dhismihiisa iyo howlahaas oo dhan ba ay casriyeeyaan hadda waxaa dhammaada ifintii habeenka illuminationka habeenka annagu waan hore u bilownay si habeen iyo maalinba garoonku uu u shaqeeyo ilaa hadda dowlado ilaa 4-5 ayaa shaqeeya oo dunida ah ilaa 12 hay-adood oo iyaguna duulimaadyo sameeyaa jira waxaa soo hameeyey oo kale oo sidoo kale codsiyo noo keenay ilaa 6 dowlo airportkeenu sidoo hadda uu ku socdo iyo saan ku haminayno inaan sanadka soo socdo bishiisa koowaad la wareegno wixii la dhihi jiray programkii naga jiray Kenya Kax la dhihi jiray waxaan qabnaa inaan noqono aad iyo aad meel isu bedesha dhaqaale ahaan sumcad ahaan caalamkana dib ilaahay kuma aha in muxuu ahaayey ilaahay tiisa ku xiran laakiin inaan ku soo noqono saan ahaan jirnay dowladahan deriska oo dhan markii Ethiopia laga reebo Ethiopia ilaa 82 sano jirta cirkeedu waan ka horeynay aad baan uga horeynay inteenaan burburin aad baan uga horeynay marka ilaahay kuma adka inuu muxuu ahaayey mowqifkanaga nagu soo celiyo annaguna dadaalkii iyo niyadiiba way nagu jirtaa marka waxaa loo baahan yahay in ay shacabku fahmaan waxa ugu muhiimsan inuu yahay hal qayb maaha qayb walba dowladdaanu oo sector walba ah oo muxuu ahaayey wixii la dhihi jiray institution building in qaybihii kaabayaasha dowladda la soo celiyo waad ogtahay boostadii waad ogtahay muxuu ahaayey waxaan ka shaqeynaynaa isgaarsiintii waad ogtahay geedka dhulku wuu shaqeeya ilaa motor tag loo sameeyey haddana waxaan rabnaa inaan ID-yadii iyo driver license-kii wixii oo dhan hagaajino annaga kelima xoolihii baddii iskuulaadkii xukuumaddu waad ogtahay September 8 100,000 oo arday yaa markii ugu horreysay 20 sano ku noqday iskuulkii ku noqday yacni sector dhaqaalihii 3 milyan buu ahaa markii muxuu ahaa 1 milyan iyo 800 buu ahaa maantana 5 milyan buu marhaya wasiirka maaliyaddu in uu muxuu ahaa canshuur dekada kaliya in muxuu ahaa la qaado ayay maraysaa waa 3 jibaar marka waxa weeye يعني dhinac walba maaha wasaaradda kaliya dhinac walba ayaa horumar laga sameeyay waxaan rajeynayaa hadda sanad maana dhamaysanin 10 bilood baan dhamaysanay waa la dhihi karaa waliba dhaqaalaha muxuudiina ku shaqeynay aad buu u liitaa markii aan adiga runta ku sheegnay Soomaalida laakiin waan isku tashiga baa wuxuu keenay dadaalkanagii inaan u fariisano isdabrin naftanada ee aan qaban waxaan qaban karnay insha Allah marka ay nabaduna noo saamaxdo gacanta muxuu ahaa dadka dibadda naga jiray xoog waa un dadkaaga iyo aqliga iyo aqoonta ay soo laabtaan dalka dhinaca ka qabtaan waan hubnaa in muxuu ahaa aan gaarino meel sare waata mudan wasiir runtii markaad fiiriso waxaa jirta mar aad idinku aad u yeerteen diyaaradaha maxalliga ee local ahaan u shaqeeya shirkadaha dhan la hadasheen oo aad runtii sharciyada iyo waxyaabaha looga baahan yahay in isdiiwaan galiyaan inaad sheegteen waxaa jirtay runtii cabasho isa soo taraysa oo dadka rakaabka ah ee diyaaradaha dalka gudihiisa isaga safra waxa ay ku leeyihiin diyaaraddu markii aynu tigidhada goosanno waxaanu haddana ka walwalnaa meeshaan fariisanayno marka sidee bay maartay shirkadahaasi ayagu ay u sameyn doonaan mustaqbalka in qofka marka passengerka markuu tigidhka goosto inuu ogyahay kursiga uu fariisanayo oo aan la isku qabqabsan su'aal aad u fiican weeye maalin dhaweyd waan isugu yeernay qodobo ilaa 9 ah ayaan u tahnay aan ka codsanay waad ogtahay Soomaalida hadda diyaaradaha ay wadato waxay ka diiwaan gashan yihiin Kenya u badan 5 Yankee baa la yiraahdaa muxuu ahaa marka diyaaradihii registration-koodii wax yar baan noo haray hadda dowladahan deriska markaan ku soo dhameeyno heshiiska oo la soo galno oo iyagana u ogolaano iyagana ogolaadaan Soomaaliya ilaa soo celino wadanku wuxuu noqonayaa registration-kii annagu dowlad ahaan maxaa kan loo yaqaan inaan qaadano 6 Oscar-ka marka diyaaradaha waxaan ka dalbanay in ay safety-ga ay muhiim tahay saldhig u tahay ama nabadgelyada waxa loo yaqaan in saldhig u tahay in qof taagan uusan jirin ee qof walba kursi helo oo aan xamuulka wax dheeri la saari karin nabadgelyada ku xiran qof walba inuu fariisto oo dheeri la goyn karin arintaas si adag baan ugu tilmaanay diyaaradaha waxaan u sheegnay in ay ilaaliyaan diyaaraddu ay leedahay air condition tanaba inay leedahay musqul
inay leedahay ilmaa jira qof waayeelaa jira in ay shardi tahay shuruudaha ay ka mid tahay inay leedahay af soomaali in lagu hadlo luqadaad rabto ku hadal laakiin waddanka markaad timaado waxaan ku adkeynay in af soomaali rakaabka lagula hadlo luqadaha kale lagu daro qodobadaas iyo qodobo kale oo shuruud ahaa in ay dhaqan geliyaan oo ku eegi doono waayo waa run diyaaraduhu way soo howlgaleen oo dee waddanka markuu si dagaal sukaya ka dhaco muxuu ahaayey nin walba itaalkiisa ayuu iska sameynayaa lamana eegayo ama nabadgelyo ama muxuu ahaay howlaha kale laakiin markii waddanka isa soo taray oo soo wanaagsanaaday hadda il gaaraa la isku fiirinayaa haddii aadan shuruuddii ka bixi karinna waad haraysaa waa laga qaadahayaa ruqsadda aad ku shaqayso marka iyageena way nala afgarteen waxay samaysteen qaar shirkado association bay samaysteen oo shirkada ah bay samaysteen annaga waan rabnaa in runtii dadka ganacsada soomaalida ganacsada hawadeenna ay muxuu ahaayey horumaraan baan rabnaa waa soomaali dad soomaaliyeed weeye laakiin waxaan doonaynaa haddana basengerkii soomaaliyeed inuu helo lacagta uu ka bixinayo waan eegaynaa inay lacag macquula tahay magaalada ku tegahayo iyo inuu helo muxuu ahaay meel uu fadhiisto saaad u sheegtay uusan intuu lacag bixiyey taagnaan dhexda oo uusan ku gaarin ama uusan helinin muxuu ahaayey shuruudihii hadda aan kuu sheegahaya sida muxuu ahaye masquul iyo dad dhalinyaraa jira ilmaha jira meesha imaanaya ama air conditionkan qaboojiyaha loo yaqaan marka arrintaas waa arrin soo taraysa wayna og yihiin hadda sidanadii hore inaan hayno il gaara aan ku eegayno waddankuna saas wax ku noqon karaa man in lays ego intaan lagu eegin aduu is eeg ma garatay marka waxaan rajo ka qabnaa seminaarka iyo tababarada iyo eegitaanka joogtada iyo miitinadaas aan ku wadno inuu soofo u noqon doono ama luujta u noqon doono oo markaa ay fahmi doonaan in aanan iyadooban la ganaaxinba ay shuruudihii dhammaystiraan waa gartay mudane wasiir waxaa jirtay runtii isbeddelkan xoogga badan ee dalka gudihiisa ka dhacaya dadku waxa ay aad u rajeynayaan in runtii shaqo abuur uu samaysmo ganacsatada soo noqotay runtii shaqo badan bay maaragtay abuureen marka shirkaddan Faveri ee hadda runtii la wareegtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde waxaa la leeyahay waxa ay wadataa shaqaalaheedii marka ma ku jiraan shaqooyinka dadka xirfad caadiga ah oo ay dadka Soomaaliyeed qaban karaan oo ay la shaqeyn karaan shirkaddaasi Faveri taas xaqiiqo ma aha mahadiino horta nimankani waxba ma wataan waxaan u malaynayaa inay ay wataanba 5 ruux kuwa horaa ka dad badnaa oo ajnabiga xaggiisa dadkii dhammaan shaqayn jiray Soomaalida waan ku celina shaqada ay u shaqayn jiray iska dhammaan 10 qof oo kuwa ay la tageen iskeedu yiraahdeen kama maarmayna mooye dhammaan balse kuwa kale yaanu ku darnay qaarna waxaan rabnaa inaan ku darno iyadoo u eegayno xirfadda baahideeda haddayna oolin baahidii xirfadlaha ma geyn kartid waa run shaqa abuurku sektor walba oo Soomaaliyeed oo qayb walba oo hay-adaha ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha waxay abuurayaan shaqo boostadu shaqay abuuraysaa muxuu ahaay iskaasiyada maalan baad commission baan sameynaynaa sida FCC da oo kale ah oo madax bannaan inuu muxuu la shaqeeyo shaqo abuuraya gaadiidkan dhulka shaqaale badan baa u shaqeeya muxuu ahaay Soomaaliya ilaa marka soo noqoto dadkii hosteska adogeed iyo gabdhaheennii iyo wiilasheennii baa ka shaqeynaya oo calankeenii baa ku yaala taasna insha allahu tacaala waan sugaynaa qarkaan u saarannahay hay-ad aan abuurayn shaqo oo kaaba dhaqaale ah ma jirto ganacsataduna markay soo laabato Soomaalidu waxay ku fiican tahay dukaan buu furanayaa ama dhismo sameynaya dhismihii shaqa ka abuurmaysa xanaanada xoolihii mooskii hadda ayaan dhow xoolihii baa la dhoofinayay waad daqartay waxaad ku marnay TV gaad ku aragtay yacni Roma maalin laguma dhisin xaqiiqada markaynu ka hadalno 22 sano oo xabad iyo nabadgelyo darre iyo inagoo leyna maamulahay oon ismaamulaynin wax sahlan maaha laakiin itijaah hadda aan u soconno ama ay dowladda siyaasadeedu federalismka ay maamulayso
oo muxuu ahaayey meel walba u samaynaysa tanasul iyo in heshiis ka dhaco sitii ugu dambeysay Juba oo kale ahayd hadda goboladii bay iyo yaa lagu maqan yahay oo raba inay iyaguna wax samaystaan wadanku sharcigiisana uu shaqeynayaa xukuumaddiisana way dadaalaysaa madaxweynaha iyo wafdigiisa 2 bilyan iyo 700 oo euro bilyan 2.7 bilyan euro waa lacag aad u badan waxaas haday yimaadaan oo aqoon-yahankii dadkiina dibadda jira aad timaadaan waxaan qabaa inaynu Soomaalidu mid ay caan ku tahay baa jira dadka kale way ka indha dheertaa way ka horeysaa ganacsiga uga fiican tahay way ka galgal badan tahay marka runta laga sheego nabad bay u baahan tahay marka yani waxay investigareysay ama maalgelisay waa Kenya waa Ethiopia waa South Sudan waa Zambia waa Mozambique waa South Africa waa Angola xagee sii socota Soomaalidu qofku waxa ugu muhiimsan nabadgelyadiisa wey intaas oo dal warba soo noqdaan ku haynaa Kenya u soo noqda hadda qof aan nabadgelyo qofku u baahan yahay taasna insha Allah qarkaan u saaranahay waxaan qabaa marka Soomaalidu in ay isku bedelayso ama ku soo noqonayso burburka isaga waqti aad u kooban niyadeeduna aad bay u fiican tahay inaan taa arko insha Allah waa tahay mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay taa haddaan kaga baxno runtii shirkan aad ka qayb galayso dalkan Canada hadda aad ku sugan tahay gaar ahaan magaalada Montreal ee shirkan uu ka dhacayo waxa iyaguna runtii dhibaato ka soo gaartay falkii argagixiso ee ka dhacay welina ka socda magaalada Nairobi gaar ahaan xaruntii ganacsiga dhammaan adduunyada aad baa looga cambaariyay adigu markii aad garoon ka soo degtay Montreal runtii arintaasi waad ka hadashay marka ma isleedahay dhibaatadan ururadan argagixisada gaar ahaan ururkan al-shabaab ay sameynayaan inay tahay tan mid ay ku soo gabagaboobi lahaayeen aad baan u qiyaasayaa xarafkaagaas dambe waayo waxaad moodaa hadda in uu dhibkoodu uu Soomaali ku ekaa kuma ekeena u badnaa waad ogtay hadda ka hor 2 sano ka hor koobkii laga daawanayay South Africa Uganda Kampala 70 ruux ayay ku qarxiyeen oo daawanaysa kubad daawanaysa maanta waxay marayaan 70 way ku dhowdahay 69 baan arkay Soomaali dhigeedii bay qabaan oo maalin walba 30 20 iyadu ma watirsanaba waxaad moodaa in ay hadda noqdeen eesaantii madax shabeel leeftay iyo inay noqdeen waayo caalamka in lagu arko wax badan bay qaadanaysaa reportkan annagiiba nagu ekaawo dhibaatada nimankani waa dhibaato dunida ah waa international terrorism waxa weeye argagixiso caalami ah wey laakiin looma jeedo maanta laakiin waxa weeye tii ay ku soo afjarmi lahaayeen ayay galeen waxa weeye caasimadaas waa dukaan laga adeegto waxa ay galeen ma aha yani xukuumad xafiiskeeda hataa maaha ciidan maaha taas waxay ku tusaysaa inayna kala jeclayn muslim baa ku dhintay ogta Soomaaliya ku dhimatay Hindi baa ku dhintay Adaan baa ku dhintay Kenyatta ku dhintay mana kala jecla qaarad mana kala jecla diin idan nabadgelyada male waxaan qabaa markii ay noqon doonto tii ku soo afjarmi lahaayeen waayo mid kale dadka walaalahanaga ee Kenya iyo caalamka kale dibku ka gaarina xukuumad ahaan shalina waan uga tacsiyay haddana si khaasan uga tacsiyeenaya waxaan rabaa inaan kuu sheego annagu waan ku jirnay caalamkuna inuu gacan nagu siiyo sidii dadkan dhiigga Soomaaliyeed iyo dhiigga ajnabiga darisyadaba xalaaleystay in kansar weeye kansarkaana la iska gooyo la iska dhameeyo intaa in caalamka gacan nagu siiyo annaga ku filan lahayn annaga nasiib darro dagaalka sokeeye wuxuu keenay in ciidan Soomaaliyeed uu maartay hubkii uusan jirin oo huble uusan jirin hubkii hadda waa kaan embargada 6 bilood ka hor cunaqabataynta laga qaaday uu noo soo socdaa qaarna uu noo bilaabanayaa laakiin waxa sabab u ahayd in 17 kun oo muxuu ahayd dawladaha dariska ay noo soo gurmadaan laakiin waxaan ku sheegayaa biyo sacbada laga rigaa ciidanka Soomaaliyeed markay gaadho oo annagu hubkiisii wixiisan la soo degno markaas nabadgelyo guud iyo tadabadaba soo ciidanku ahaan jiray annaga mas'uulka noqonayna marka dadku ha dul qaateen laakiin ha arkeen adawga ugu xun ee ugu dhibka badan noloshoodaana goleen kama jeclayna dhiigooda inuu yahay shabaab wayna cadaatay maanta marka ha weeye jawaabteedu waa tii ay ku soo gabagabay lahaayeen aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan lahow waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka mudane Cabdullaahi Ciilmooga Xirse oo aan kula kulanay xarunta ICAO oo magaalada Montreal
sidaa halkanba aad ka arkaysaan calaamadan quruxda badan waxaa ka dhex muuqda calankii Soomaaliyeed oo ka dhex taagan xaruntan ICA oo xarunta ku taala magaalada Montreal ee dalka Canada taasina waxa ay runtii ayna tusaysaa ifafaalana u tahay in Soomaaliya ay dib u soo noqotay mustaqbalkana dhowna ay la jaan qaadi doonto wadamo aad u horumaray Muxudiin Jaamac telefishinka qaranka Soomaaliyeed Montreal Canada Kula malise, anma lo hashe.